بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliyeed meel walba oo joogto salaamaya waxa waaye horta mar walba waxa dhahaa barnaamijyadan hadalka waxa waaye adigu barnaamijka talentigaaga waxa waaye fan iyo hees oo inta ku wax soo hadlin laakiin waxyaabo badan oo waxa jiro aad maxaan kugu qasbay inaad soo hadashid oo kugu kalifaayo waxa waaye wixii ay dadku u jeedaan oo muuqdo ee arkaan oo ayagu maxaan yiraahdaa fasirnaa waa gooni laakiin waxa hoose oo anaga shakhsi aan dhalinyarada heesto cid la socota barahan ama og ama ka fanaaniin xaqiiqda markii laga hadlayo fanaaniinta Soomaaliyeed waliba kuwa dalka ku sugan oo dalka joogo waxa waa intooda badan gumeysiga macnaha qaab darbiga ku jiraan ha noqdaan qaar fiidiyoyo laga haayo kuwa ma aragtay qolobta ka jirno oo maxaa yahay telefoon ugu gumeysto kuwa dad loo soo adeegsado ma aragtay oo dad ma aragtay Soomaaliya dadka joogana waxa waa xaqiiqda markii laga hadlo $20 qofka dad soo dhiibtay ku soo adeegsato qofkaas aadaalid dad ay ka soo wada jiro oo ku soo aadaay waxa waa muhiimada aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay horta barnaamijkeena oo socday oo bilaaw ilaa dhamaad oo waxa waaye YouTube ku saabsanaa YouTube-kii gacan inuu galo YouTube-kii inuu isoo noqdo inaan raali gelin soo bixiyo inaan hadana wax ka soo jabo waxa soo dhan xaqiiq dhab oo guud ahaan hadana laga mahaayo waxa dhabto hadda taagan markii laga soo tago qadartii dhacday iyo maxaa la yiraahdaa tacsidii oo nagashay iyo xabsigii markii laga soo tago waxa waaye horta nina qalad nagu soo maagay anaga oo qaladka markuu nagu soo maagay maxaa la yiraahdaa anoo iska joogo Djibouti aqoon aan u lahayn waxbana isa naga dhaxeelin waxaan arkay nin iga soo hadlayo aniga maxaa la yiraahdaa oo bilaa macna dara been u jeedo oo cad ka hadlayo ninka waa marmar waa arki jiray maxaa la yiraahdaa laakiin kuma xirneen aniga nin oo social media ku jiro oo yahay qabyaalada iyo siyaasadda ka hadlay waxyaabo noocaas inuu yahay arki jiray marka arrimo iga waaweynayeen wax soo meelay jiro kulay dawlad iyo wax isfahansan yihiin iyo waxyaabo dad isqabteen inuu ka hadli jiray waxaas u meelay jiray laakiin kama dambeys waxa ogaadeen in iska madadac ah oo iska hadlo oo siyaasad xataa aan waxba ka aqoonin dawlad aan waxba ka aqoonin qabiil aan waxba ka aqoonin because ilaa hadda qabiilka uu yahay iyo qolada uu yahay ama aqoon u maleeyay mana maleynaya dadku uu sheeganayo inuu ka dhashay because qofka waxa waaye dadka uu sheeganayo dad wax cisto oo dad macnaha maxaa la yiraahdaa qabiil Soomaalida kamid ah oo la yaqaano oo magac ku leh oo dad ka dhashay oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro leh oo fanaaniin leh oo wax walba leh waaye oo waxa way qofkan haduu qaldan yahay qabsan karo laakiin aniga hadda waxa aaminsanahay shakhsigaas asiga ah magaciisa qaadin oo Soomaaliya oo dhan ay wada ogtahay YouTube-kiga hadda kor gacanta u gali jiray waxa way in uusan qolaba lahayn qof qol cid oo ka dhashay ama loogu dacwado uusan lahayn xaqiiqda markii aan ka hadlayo horta aniga cid aan ka baqayo oo Ilaahay ma jirto maxaa daraadno waxa igu kalifay in aan aniga inta soo fariisto oo aan live inta soo galay YouTube aan soo dhaw maxaa la yiraahdaa apa social media tahay maxaa la waa ka baqaya kana waa ka saaraya waxa waa aniga waxa soo wacay nin dhalinyaro ah oo YouTube-kiga hayo oo walaalkay adeer darijo oo Kenya degan oo meeshaas joogo waxa waaye oo dad is aamin aan ahayn YouTube-kiga asoo 8 ku maraya u dhiibay adeer darijo oo aan waxba ahayn waxna aan ka jirin waxa way gacantu ku soo qabtay copyright igu sameeyay waxa waa content waxyaabo badan oo igu sameeyay YouTube-kiga waxa way heesaygu ii xiri jiray waxa way account igu xiray YouTube-kiga lacag inaan ka sameeyo heer ah oo gaarsiiyay wax walbo si walaalnimo iyo kalsooni aan nooga dhaxayso oo isla marnay waxa waaye qof aaminay aan nafteeda ku aaminay waxa wixii uu soo diri jiray wax walba uu sameyn jiray okay ninkaas aniga saaxiibkayga maanta hadii uu gacan uu galo ama gacan bini aadan ama qof uu gacanta ku dhigo waa ku qasbanahay in YouTube muhiim ma ahan naftiisa ay muhiim ah Soomaali Maxamed ha ogaato ama ka dhaadhacdo aniga ku adkaysi waan ku adkaysan karay ninkaas markaan lahaa 48 saac wada kaaga saaray markuu ilaaha aan lahaa waxaan xaniyahaaga fuul waxa ay qaadi kartid malahan anoo Muqdisho dhac joogo oo aan cidna ka baqaynin oo aan isdheyn qabiil aan aaminsaneen oo kan yahay idaarood iyo fikir ka dhac iyo qabiil iyo inta ku jirta iyo waxaas ugu jirin xaniyahayga nimadeeda anoo kalsooni kale aan deeyay cidna aan deeyay ama cidaas ka dhicinaysa ugu jirin ama qofna u soo marin rabina nimadeeda xaniyahayga aan ku hadlay inuu soo waxba iga qaadi karna ogaa because fanaaniinta Muqdisho boqolkiiba 99 gacanta ugu jiraan nooca gacanta ugu jirna aniga ma ahaan ma fahamtay oo ugu soo qaldamay Djibouti ka soo bilaabo iga soo daba dhigtay waan ka aamusay shibanka ere waxyaabo badan oo ka hadlay Djibouti uu jooga gaaja ku dishay kan uu ka hadlay waxyaabahaas uu ka hadlay waa ka aamusay ilaa Muqdisho imaaday waxa waaye wuxuu ilaahay farmaajo iyo maxaa uga soo hadashay
arrintii haddana shabaaka eri wuxuu yidhi show kama qayb geli kartid macnaa salka ii saare wax igu kalifay marka anoo oo aan ninka aan u naageenin aanan ka baqin oo aan fiidiyoon u iga haynin oo waxbana igu sameynaynin wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeenada ka mid ah anigu garow jooga wax soo wacay deeq darajo soo wacay wuxuu igu yiri ninaaga shit wuxuu igu yiri ninaa bas koolay waa ilaa waxa soo wacday gabadh maskiin ah waxay u tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaada naloo haystaa bas aniga awoodeedu waxay noqotay ninkii inaan waco aan dhaqorniyo aniga adiga naga dhaxaysaa dagaalkan waxaane maxaa ku haysataa dhalinyaradaas oo waxa waaye wuxuu u adeegsaday nin laga baqo oo rasiid nuur Allah markii aan ka daba tagay aan dhahay war ka baqin waxba idinku ma sameyn karo waxa la itaha Ahmed Rashid aan dhahay waxa la itusay video ninkaas oo dad dilaayo oo dhalinyar Soomaaliyeed dilaayo laamiga dhexdiisa ku dilaayo videogaas markii aan arkay ninka saaxiibkayga waa u baqaanay waa u baqay bis ninkii markaa waxa wuxuu igu yiri live soo gal way bari waa bariye ninkii markaan bariye waxa waaye waxa la ii sheegay ninka saaxiibkayga ahaa in la sii daayo deeq darajo markii la sii daayo waxa ku yiri saaxiib ka soo tag meeshaas waxa waaye imaw jimeelkayga ninkii gacantiisa u gale intii imaa ku ere waxa waaye deeq darajo ka soo tagay ilaahay deeq darajo familkiisa meeshii iyo gurigiisa iyo wixiisa iyo noloshiisa oo ka soo carro oo anigu xabsi ku jiro oo garow ila imaado waxa Soomaali wax ma fahansanin deeq darajo ku qayaani waxyaabo noocaas ka hadlaya marka hadda waxay taageertaa waxay ugu kalifay inaan soo hadlo waxa waaye ninkii maxaa la yiraahdaa hadii YouTube-kii baasweerkii wixii oo dhan gacanta ku haystaa inta ka baqaay ma laha gacanteeda inay ugu jiraan waxa waaye maanta kalsooni iyo khibrad aan u leeyahay oo Soomaali ugu aamintay aan YouTube la soo fariistay qofna ma bari jirin xaniye igu jiray oo Soomaali isku barin wali igu jira waxa waaye daciif waaye nin rag ma ah meelaha hoos ka soo hadla meelo hadeerta wax ugu kalifaa waxay tahay codkii dad waxaa jiro oo dad waaweyn oo arrinkiina ogaadaan rabaan dad asxaabta kamid ah oo codad aan markii aan ka qabanayno iyo ana la wadaag ana diray waxa waa dad u diray waxa waa inay ogaadaan ada codadkii la soo dhigay YouTube marka ma soo heshiin ani ninkaasi aniga YouTube-kayga iguma soo celinaysis ay heshiinay YouTube-kayga xaniyi marka hore la iga qaadan igu soo celiyay habeenada kamid ah anoo deeq isla jooga deeq telefoon ku hadlaaya arkay oo ninkaas Ahmed Rashid Allah ka hadlay oo Ahmed Rashid ka telefoon ka qaadnay deeq waxaan ku iray saaxiib adaanikaas ninka la yiraahdo Ahmed Rashid u galiyay gacanta YouTube-kayga waxa waaye hadeertaan adaanikaas saas waxa la yiraahdaa iga heelay waxna igama qaadi lahayn YouTube cusubaan aniga hadda sameystay YouTube kaasna waxa waaye uma baahni laakiin xaqiiqada jirto waa ka soo hadlaya baa ku yiri asoo sharaftiisa dhoorayo oo ka baqaayo Soomaali Maxamed sharaftiisa uga baqaayo Ahmed Rashid oo YouTube-kayga ii soo celi intuu wacay anoo aan la baryo tamin aan wicin oo soo galay qadka ninka la yiraahdo heblaay hebelka caliso markuu soo galay wuxuu yiri iyo kuugu wareejiya sidii YouTube-kayga ugu wareejistay maxaa la yiraahdaa oo aan deeq darajo baasweerkii wixii hadda ii bedelay bas marka si walaalnimo oo iiga codsado yiri maxaa la yiraahdaa ii soo gal YouTube waa ku bariya ii sheeg bas ina YouTube-kaaga kuugu wareejilay aan bas aniga sheekada meesha ku ekaatay wax walba aan islahaa sidii aa dhacday bas hadeertaan ala kulli xal muhiimad soo fariisa waxay tahay waan inuu tusayaa baqashada la bargiisana waa taqaanaan wuxuu soo diray waxa waaye xayaadka jiro wacaya wuxuu leeyahay waxyaabo oo maxaa la yiraahdaa waa ku qaabinaya video waa ka duubaya kan uu duubaya meelaha hoose ee meesha ninka rag laga marin oo naga soo maraya ma fahanti Soomaali Maxamed waxa uu sheegaya aniga horta cid aan ka baqaay ma laha YouTube-ka maanta haduu hawada ka baxo فيديو يوتيوب waxa uga baanay malahan waxa waan noolahay dad baa ka dhashay Soomaali Maxamed aan ka dhashay 20 jir ahay mar walba jaanis ah haysta aniga laakiin waxa inii sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed waliba fanka dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeesi ku jiraan intooda badan gumeesi idinku waxay idin soo gudbiyaan farxada idin la wadaagaan heesa idin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqada marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeesi intooda badan ku jiraan waa loo caawin qaarkood video waa laga hayaa qaarkood wax walba lagu sameeyaa qaarkood dad loo adeegsadaa raga loo adeegsadaa
ninkiina ilaa ay hadeertaan waxaa dadku daba taagan yihiin ee sheegaan waxay tahay muxuu idin daba taagan yahay sharmi muxuu uga soo hadlay dadku waxay isleeyihiin hadeer sharci sheekadan weeb aamustee muxuu sharmi iyo haddana uga soo hadlay waxaa waaye wuxuu uga soo hadlaya dadku kula feeso naagu dhalay weli cagto noo saaraya waxaa waaye haddana annaga nama soo aadi karo oo nimadiisa annaga naguma soo aadayo nooguma caga jugleenayo meelo hoose iyo gabdhihii iyo xaafadihii iyo familkii nagala maraaya dagaalada ciifeed cidiyaa hoosteedu nagala diraaya waxaa inii sheegaa aniga hadeertaan deeq darajo walaalkeyga waa isla joognaa waxaa waaye ilaa iyo meel maxaa waaye ilaa iyo familkiisa ay u baqaan heerkaasuu maraaya oo la yidhaahdaa maxaa la yidhahdaa intaa loo idin diraaya oo aniga xataa la idhaha intaa lagu diraya waxaa waaye annagoo dalkeena joogno oo dhalinyaro soomaaliyeed ah oo dalkeena joogno oo annagoo dalkeena joogno dhibaatada jirto dalkeena la ogyahay horumar ku sameynayno dad haddana xagga jooga oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo firiyo ku nool waxay nagula dhaqmayaan waxyaaba aynan u dulqaadan karin fanaaniinta soomaaliyeed qaarkood inta badan hore ugu soo dulqaateen waxaa idin sheega aniga qof bini aadan aan ka baqaayo ma jiro ciilka iyo ilintana waxa ii keenayo waxay tahay aniga haddii aan adkaysto oo ninnimadeeda aan ku adkaysto oo wuxuu yahay aatus waxaa waaye meel aan ka damqanayo rag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar iyo xaggooda naga soo maraaya iyo meel aanan maxaa la yidhahdaa dad aan hadhown eed aniga tusha naga koraysaa oo dartiina wax walba nagu gaaraan leeyahy Soomaali Maxamed aniga waxaan rabaa in ay ogaato dhib zaa'ida fanaaniinta Soomaaliyeed aniga u hadlaya afka fanaaniinta ku hadlaya weliba kuwa dalka ku sugan dhibaato zaa'id naga heesato xaggan iyo maxaa la yidhahdaa dadkan ku sugan dhankaas maxaa la yidhahdaa qurbaha hadalka aan ku dheeraanaynin Soomaali Maxamed waxaa waaye waa ka raali gelinayaa xanaaqda iyo kuleelka iyo hadalka aan ku hadlay waxaa waaye arrinka inaa ogaataan arrinkaas meesha uu maraayo ninkaana uusan naga daba harin cagta uu noo saaray haddana waxa aan ka sii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlaya xaniyiisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walbo aan ninkaas inaan ka hortaga damco waxaa isoo hor istaagayo waxaa isoo hor istaaga Axmed Rashiid ninka noogu yiilay ninka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay uga baqaysa ma aqaane dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kaadanayso ninkaasoo naga soo maray ninkaas markuu awoodi waaye deeq darajo cilmi kuma dhamo wallaahi oo bilaahi oo talaa xabad cilmi ah oo intaas dhigin isku dhameen awood waxa u yeelan inaan YouTube-kiisa ahwada ka saarno uu naga soo weerarayo uu awood u yahay deeq darajo uu ka daba tagay waxba uu naga qaadi waa asiga ilmaha xogga uu wato asiga waxa basabeeyo xaniimaha qol meeshaas ugu jira dadaa waxay ugu yeelayaan afaar qabiilka marka qofka ugu yeelayso waa qabiilkaaga marka lagu qaldamo qofka qabiil loogu yeelaya laakiin inaan qabiil lahayn qabiil wax oogeen raganimo aan lahayn Soomaalinimo aan ku jirin oo waxba aan tareenin afkaas uu faaq ka haayo oo isku diraahla qabiil ugu yeelaysaan waxaa waaye waxaa loo danqadaa qofka qabiil wax ka yaqaano qabiiluusa waxba ka aqoonin naraguusa waxba ka aqoonin heeruusa waxba ka aqoonin waxaa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed waxba ka aqoonin ninkaasaa noo jabiyey oo la yiraahdo Axmed Rashiid gacanta noo geliyay waxaa waa haddana uma jabin oo macnaha waxaa la oynaa aan la cishoonaa maaha YouTube-keygii in macnaha gacanta uu ku haysto ama weli la xukum YouTube-keyga anaa gacanta ku haysto xitaa deeq darajo hadda gacanta kuma hayo akoontigeygana anaa gacanta ku haysto YouTube-keyga anaa gacanta ku haysto wax walba anaa gacanta ku haysto laakiin weli agajugleen iyo dadkii deeq darajo ilaa hadda waxaa waaye wuu ka soo tagay noloshiisii wixiisii wixii u socda horumarkiisii meeshuu joogo uu ka soo tagay waxaa waaye xayaad kaajal ayaduna sidoo kaleeta gabadha way ka soo tagtay waxaa xamariga ku sugan tahay wuu uga soo daba tago waxaa waaye dabadu hadal u qabtay wuxuu dadku ugu booteenayaan waxay tahay oo dadku uga baqayaan dhalinyaro Soomaaliyeed fanaaniin Soomaaliyeed dad fara badan oo hadda magacyadooda inta ka soo qaadeen oo hore wax ugu geystay oo fiidiyoyo ku saastay inta badan ninkaas dumarku wax ku sameeyaa rag wax kuma sameeyo ragna wax kama yaqaano waxaan aaminsanahay inaysan weliba rag is arkin haddii rag is arki lahaayeen ama maanta uu Soomaaliya joogi lahaa waxaa waaye ninnimadiisa la tusi lahaa waxa uu asiga yahay uu arki lahaa Soomaali Maxamed waxaa ogaataan
ninkaas inuu dhib nagu haayo dhalinyarada Soomaaliyeed inuu dhib ku haayo ma fahanteen waxa waaye anigu inta hadalkaas wax usoo gudbinayay oo muhiimadu ay tahay waxa waaye oo raaligelinta aan dhawid bixiyay ama baryada aan baryahay ma ahan wax aniga asiga ka baqay ama cilmi uu iga badiyay ee deeq daraja baskoolad madax looga hayo xaniyo gurigiisa loogu tagaa ku yaray ma fahanteen si familkiisa loo tagay waa la soo waxay marka aniga awood kale oo ifurneed ma lahan wada kale oo sameeyaa in ninkaas tuwaco aan bariyo oo video soo duubi dhaho aan video u soo duubo wada ahayn ma lahayn markii tii ay dhacdo isoo subax qadar ay qabsatay oo xabsiga gale oo taasiya ay gashay ninkii ilaa hadda uu dib taagay ahay kula hadalka waxa ku soo xiraaya muhiimadu ay tahay waxay tahay ninkaas asiga ah inuu weli cagto oo noo saaran yahay oo na dabahaayo waxa waaye anigana ma aan shakhsi u dabahaayo waxa waaye ninka daraja oo dhalinyarada walaalkayga ah iyo waxa waaye bahalkii maxaa yiraahdaa teeda anoo dhan family waa ka dhalanay qofka familkiisa anoo maxaa dadku aan isqaana laga yaabo dadku maxaa yiraahdaa familiadooda ma meesan waxba qaban karin oo ninkaas yaa horta family wax qaban kara family qofka markuu familkiisa la ogaayay meeshu ka soo jeedo ninkan familkiisa lama ogo wuxuu yahay kama soo jeego qabiiluu sheegtaa qabiilku uu sheegto wuu sheegta aniga hadda qolada raba sheegan karaa laakiin khadadka aan ka dhashay waan dhex joogaa waa kuwaana ayaga ka dhashay waa sheegay waa ku faana waa ka dhashay Soomaali Maxamed guud ahaan uga dhashay laakiin qaasatan ma jeerteen ka soo jeeda qabiilkan in la isku barto waa muhiim maahan qabyaalada qulubta ma ahan ma fahanteen laakiin muhiimadu waxay tahay ninka meel loo raacdo ma lahan oday cista ma lahan nabadoon looga dacwoodo ma lahan dad loo mara ma lahan wuxuu yahay ma lahan saasay tahay dad ugu sii heelinaya qabyaalada iyo Soomaalinimada iyo qabiilkaba waxba ka aqoonin marka waxa uu sheegayaa Soomaali Maxamed arrinka inay saa u ogaato videoga wax igu soo kalifanay arrinkaas ahayd waan in salaamiya kuma sii dheeraan karo waxa waaye hadii hadalka inta ka badan ku sii dheeraadana hadal iga tagaayo Soomaali Maxamed salaamu calaykum waan in salaamaya goodbye